Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سأل سعودين ساكيتو لحية لباتنكي بشي أكتوبر waxaa noo furmay kalfadhiga 45aad ee baarlamaanka si runtii si habsami loo fiican uu noogu socday sida caadi u ahayd markii kalfadhigii dhamaaday madaxweynaha waxaan weydiiyay su'aal xildhibaano badanna runtii way safnaayeen waxay rabeen in su'aalaha weydiiyaan su'aalaha iyaga ku salaysnaa tayadu waxay ku salaysnaa xaqiiqda dhabta ah ee wadanka ka jirta waa u qodobeeyay waxaan tusaaleeyay maaragtay wax kasta oo wadanka ka jira xaaladooda amni waxaan ka siyaasad dhaqan haddii ilaahay ku roonyahay iyo bulsho intaba sida baarlamaankuna waa wakiil bulsho shalay markaan halkaa dad ku dooranaynay qof walba isagoo musharax oo hebel la yiraahdo buu yimid madaxweynuhuna kuwaas ka mid ahaa markaan dooranayna wuxuu ka baxay isagoo madaxweynaha su'aalaha aan weydiinay meeshii madaxweynuhu si nadiif ah uga jawaabi lahaa oo dastuuri ah xildhibaanada kale oo harsan uu ka dhageysan lahaa su'aalaha iyo aaraada ay qabaan iyo fikirkooda wuxuu bilaabay madaxweynuhu hanjabaad inuusan xurmaynin hoolkii iyo baarlamaankii iyo mujtamac inta leeg oo daawadayaal ah oo mas'uuliyiin dawladeed iyo diblomaasiyiin iyo hay'adaha caalamiga ay dadka socda ay wada joogeen wuxuu bilaabay inuu handado khaasatan aniga xataa sidaad dhageysanaysaa wuxuu iga dhaxanjabay maaragtay baarlamaanka dhexdiisa madaxweynaha taasan jawaabta anu siis hanjabi maayo sidiisoo kale laakiin dastuurkan ku hanjabaya haddii alla idmo jawaabtan isagu ka helayaa laakiin waxa ceeb iyo sharaf dhaca madaxweynaha aanu wax xumaana ma oranin nin oday oo saaxiibkay oo ahaa waxaan weydiiyay oo kale ah qaaraadaydii iyo su'aashaydii shakhsi oo aan sax u lahaa mudan ahaan inaan weydiiyo waad u jeedeen si cara leh buu hoolkii uga baxay iyadaan la fasixin waxaa dastuurku qabaa marka madaxweynuhu khudbadiisa dhamaysto su'aalaha la weydiinayana uu dhameeyo in guddoonka baarlamaanku uu madaxweynaha fasaxo isagoo xildhibaanada ka codsanaya in madaxweynaha la fasaxo ma yeelin waxa weeye wuxuu rabay markuu ku hadlay uu iska baxay insha Allah hadii alla idmaanaw xildhibaan ahaan iyo bulsho ahaan maadaama aan nahay wakiilo bulsho dib baanu isugu noqonaynaa wixii tilaabaha oo maaragtay aan wax ku saxaynana cid aan uga haybaysanayna haba yaraatee ma jirto madaxweynuhu wuxuu sheegay in ammaanka wax laga qabtay dad badan gobollo badan la soo celiyay waxaas oo ka jiraan miyaalaad madaxweynaha wuxuu qabtay waa wixii loo doortay wuxuusan qaban baa anagu weydiinayn iyo aaraada dadku ay rabaan sida su'aashayda ka hadlayseen waxaan weydiinayay waxyaalaha waddanka waa la socotaan kacdoonna ka jira waxa sheegtay inaad ku hanjabi doontaan dastuurka dawladda talaabada qaadsan maxay waxa weeye talaabada markaan insha Allah waa in la soo socodsiinaynaa wixii dastuurku nafarayaan qaadanaynaa xildhibaana waxa sheegtay amniga Puntland oo faraha ka baxay Puntland taan ku noolay amni baa ka jirta waatay Puntland talada faraha hadda buucad adigu meesha aad ku nooshahay oo ammaan ka jiro waxaan ka hadlaynaa Puntland markaan ka hadlaynaa gibi ahaan waddanka oo dhan sidaas darteed meel kastoo wax ka jiraan waxa laga rabaa isaga mas'uulka ah qofka jooga meesha ugu dambaysa corner ilaa corner madaxweynaha la rabaa amnigiisa iyo xuquuqda muwaadinka inuu ilaaliso xukuumadda laga baahan yahay annagana markay ilaalin weydo waajibaadka iyo dastuuriga inaan ka qabsanana loo ka baahan yahay inayna ka qaadan ma laga yaabo maadaama aad tiris casir shalaan dooranay markii biyo uma kaban karno inaan ka qaadano hadduu dastuurka jabiyo madaxweynuhu dalka mas'uuliyad buu hayaa haddii su'aal la weydiiyo way waliba baarlamaankii oo matalay shacabka bulshada haddii su'aal weydiiyaan xaq wuxuu u leeyahay inuu ka jawaabo inuu cadhoodo oo cararo ma meeshuna bakhaar ma yahayn waa golihii baarlamaanka waa golo dastuuri ah saddex hay'adood baa dalka ka jira hay'adda fulinta hay'adda garsoorka iyo hay'adda xeerdejinta waxay mas'uul ka tahay inay dawladda la xisaabtanto su'aalana madaxweynaha weydiiso halka waxaan uga sheegayaa shacabweynaha reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed madaxweynuhu markuu noo imanayay qori caaradii kuma iman cod buu ku yimi isagoo shacab uu soo galay baarlamaanka isagoo madaxweynaha buu noqday halkana qori caaradii laguma qabsanina waxa lagu qabsaday cod baa lagu qabsaday maalintuu imanayay wuxuu dhaleecaynayay oo maagayay oo waxaan jirniyo wax jiraba ka sheegayay madaxweynihiisa ka horeeyay madaxweyne maxamed cabdiweli maxamed cali gaas ayuu ka sheegay wuxuu rabo dhoranayay madaxweynuhu marnaba kama joojin ololihiisii iyo hanjabaadiisiiba uu dhagaysanayay doorashuu la galay madaxweynuhu waa laga helay si sharaf iyo karaamo leh ku wareejiyay marka waxaan leeyahay madaxweynaha dalka qori kuma qabsan cod baad ku qabsatay golihii ku siiyayna inaad sharaftaabay ahayd inaad u hanjabtana xaq u maleeyay ka xildhibaan ahaan sida xildhibaankii horeba sheegay xildhibaanada hadda iga dambeyn doonaaba kulleed baarlamaanku dastuur buu soo ilaaliyay waa xeer ilaaliye dastuurkan dib u noqon doona wuxuu uu nafarayana waajibkayga insha Allah ka qaadan doona madax xildhibaan waxa jira hadal hayn sheegaysa
in mooshin dabada ka riixaysa dowladda federaalka uu jiro maxaa taagan anigu kaama ogin haddaydan idinku ogeyn idinkaa saxaafadoo meelba farta geliya haddaydan taa war u hayn anigu mooshin jira ma hayno federaal mooshin wada ma hayno federaal xukuumadda wada ma hayno mooshin ma hayno dee kaas idinku baa yaqaana bal farta noogu fiiqa meeshuu ka jira iyo halka laga soo abaabulay xildhibaan ahaan waxaa la sheegaa in daliilaha madaxweynaha aad u jeedinaysaan inaad shacabka maqashaysaan laakiin aysan jirin tallaabo aad qaadaan arrintaas maxaa ka jawaabaysaa xaq bay u leeyihiin shacabku inay maqlaan dhaliishan dowladda u jeedinayna waxaan u matelaynaaba waa dhaliil iyo toosin oon dhaliili karnaa haddii khaldiin waa dhaliilaynaa laakiin shacabka u tuumi mayno heesana u qaadi mayno laxan fiicanna u saari mayno laakiin waa dhaliilaynaa waxaanu kala ummadda tusaynaa iyo dadka aanu matelo waxaan waajibaadka naga saaran haddaama waxaad rabtaa inaannu markuu madaxweyne yimaado u qaadno noolow u qaadi mayno hadduu noolow yahayna waa noolow hadduu khaldan yahayna waa toosinayna laakiinse madaxweynuhu heshiisuu sheegay inuu boosaaso ka soo galay aeroboortkii tii dekadda kulli ma idin weydiinoo ma keenin oo su'aale kama idin keenin keliya warbaahinta unbaa mar kasta ka hadashaan oo ka maagtaan taasoo maaha qori ku tuur laakiinse aydin weydiin ma oo maxaanu weydiinaa soo kii cararayba runtii sida muuqata hadda madaxweynuhu isagaa waxa way shirkiina carqaladeeyey kana baxay markii xildhibaankii horeeyey su'aal weydiiyey xaqna waxaan ugu leenahay 48 saac oo xiriir ah haddii aanu la xisaabtamayno su'aalo weydiinayno adeegga bulshada ku xariiraya dawladdu bixiso in uu naga jawaabo in uu naga qanci in uu waxa way dukumiinti haddaanu dirsanno isagoo meesha fadhiya naloo keeno caddaymihiina uu maarata una tusiyo wuxuu ka soo horjeestay isla xisaabtankii waxa weeye waxa meesha fadhiyay oo shacabka ugu badnaa maqlaysan ridaya waxa ay golihii wasiirada golahanna waa golo baarlamaan golo isla xisaabta golo lagu sacbiyo ma shaqadii ummadda loo qabtay baa laga rabaa waxa weeye dhaliishoodii baa meesha lagu qarinayay madaxweynuhuna waa diiday inuu xisaabtamo inuu xukuumaddu waxa weeye ummadda transparentigii iyo wixii aan weydiin lahayn duwaantaa waxa weeye waxa ku qoran wixii aanu aragtiyii aanu ka soo ururnay shacabka reer Puntland iyo dhaliyihii dawladda ciddii sixi lahayd oo aanu u gudbin lahayn waa madaxweynaha de wixii dhacayna waxay la tahay shacabka reer Puntland waa daawanayeen idinkuna goobjoog baa ka hayday marka de golaha waxa weeye golaha shacabka iska leh annaguna xildhibaanadii shalay keensaday baan nahay mudul ninkii dhisay baa ka weyn baa la yidhi waxa weeye isla xisaabtanka cid allaaliya ciddii diidda ee dastuurka wuxuu ka qaban ku qaadeen waxaa laydinku eedeeyaa inaad marka hore madaxweynaha kululaysaan kadibna hadhow ay iska heshiisaan oo saa danta shacabka ka tagtaan ma isbedelaysaan berri mise sidatan aa u daba taagnaan doontaan baarlamaanka Puntland waa ka duwan yahay baarlamaanadii hore anigu waxaan ahay shacab ah baan ahaan jiray muddo yar baan hadda baarlamaanka ka tirsanahay wax allaaliya wixii xilligan shacabka aan jeclaa in la ii qabto baan doonayaa halkan intaan joogay inaan ka hirgeliyo oo adeegga ummaddu ay gaadho dawladnimadu shaqayso kala dambaynta la hirgeliyo intuu meel iska fariisto maaragtay hadduu khudbad soo diyaariyo de anigu waxaan doonaa hadda akhrin kara Puntland waa jannaan oran kara iyadoo waxba ka jirin arrintaa ma qaadanayna waxaan doonaynaa itus oo itaabsi madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa inuu sharciyada dib ugu soo noqdo baarlamaanka uu fowdeeyey inuu dib ugu soo noqdo isagoo berito u soo horeyso inuu dib u yimaado inuu xisaabtamo 2000 oo su'aalood baan weydiinay hataa 10 su'aalood ma bacdi magacaygu waa xildhibaan cabdiraxmaan diiriye carab runtii aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu mahadnaqayaa bahda saxaafadda maanta waxaad ogtihiin inuu ahaa kalfadhigii 54aad ee golaha baarlamaanka Puntland oo ah wax dastuuri ah fadhiga madaxweynuhu ka soo qaybgalayo oo uu furayo xidhayana oo uu furayo waxa dastuuri ah oo dastuurkeenu qaba xeer hoosaadkuna qaba baarlamaanku inay madaxweynaha su'aalo ku hor weydiin karaan kalfadhiga furitaankiisa markuu dhamaysto khudbadiisa waxa kaloo iyadoo xeer hoosaadka baarlamaanka ku qoran ama dastuurkeena ku qoran in madaxweynaha marka uu khudbadeeyo kadib loo yeeran karo oo su'aalo la weydiin karo waxaad meesha ka dareemayseen maanta xildhibaankii weydiiyey su'aalaha xaq buu u lahaa inuu weydiiyo waana dastuuri xaq baan u lahaa anigu inaan weydiiyo madaxweynaha dastuuri waana diyaarsanaayeen xildhibaanada badankooduna inay madaxweynaha marxaladda dalku marayo iyo waxqabadkii uu qabtay wixii uu kaga jawaabi lahaa in la weydiiyo unbay muhiimaddu ahayd madaxweynuhu runtii khudbad aad u wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaysu ka khudbadeeyey laakiin waxaa la rabay su'aalaha ka imanaya su'aalaha inuu si sharaf leh si madaxweynenimo ah si mas'uuliyadnimo ah inuu madaxweynuhu uga warramo waad arkayseen shacabkuna waa bidhaaminayeen ama way eegayeen ama way arkayeen wixii ka dhacay meesha ma ahayn madaxweynuhu inuu xildhibaanada u hanjabo uma hanjabin hal xildhibaan cawil madaxweynuhu uma hanjabo wuxuu hanjabay 66 xildhibaan ayuu u hanjabay oo golaha baarlamaanka dhexdiisa uga hanjabay taasna xaq maaha insha Allah taala dastuurkaana anaga iyo madaxweynaha anaga dooranay madaxweynihii dalka weeye
ma aha madaxweynuhu waxa weeyaan madaxweynayaal buu la tartamay isaga ilaahay subxaanahu wa ta'aala guushi siiyey waxa la rabay marka madaxweynuhu sidii wax u dhaliili jiray markuu sidii xilbaankii ugu horreeyay ka hadlayay sidii wax u dhaliili jiray ayaa loo dhaliilaya hadduu wax qabtana waa la ammaanaya madaxweynaha marka ma aha madaxweynuhu inuu dulqaad badan ummadda u yeesho shacabkiisa u yeesho baarlamaankiisa u yeesho ayaa loo baahnaa waxaan dareemay insha allahu tacaala waxaan ku garnaqsan doonaa ama ku wada hadli doonaa dastuurkeena waxa uu ka qabo dastuurka ka dhigay ku garsan doonaa maxay ka dhigan tahay maxaa ku micnaynaysaa waxay ka dhigan tahay dastuurka madaxweynuhu inuu jibo golaha loogama baahnaa inuu madaxweynuhu ka kaco iyadan gudoomiyaha baarlamaanka u ogolo dastuurka jabiyay muxuu yahay xeerkiisu waxa way banaanka in loo tuuro Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran.